الحمد لله عاوي أو أهلين مسوق لي أحد شنو أي هاي كوبيلاتن وحن نقول نسوق نمي برجع إسلام كبر هذا جروة عاصمة بنتلان مرشحين تا يقولي خلينا خلافاتك يصوحوا لده اللي بعنا يسمى ذا يقولي أي إسكاسوحولين يقولي أمني جدور الشذا dood dheer iyo wada hadal dheer kadib arintii waxa ay ku soo dhamaatay afgarad iyo guul waxaan Ilaahay subhanahu wa ta'ala ugu mahadcelinayaa inay guul iyo gobonimo hawshaasi ku dhamaatay inta dhimanna waxaan rajaynaynaa inay ku dhamaato guul iyo nabadgelyo 2019 bisha January 8deedana Puntland uu iman doono hogaankii ugu wanaagsanaa ee dadka iyo dalka badbaadin lahaa waxaan rabnaa walaalaha na dhageysanaya ku warkay oo gaari doona inaanu u sheegno galabta halkan inaanu isugu nimid isimadii Puntland odayaashoodii iyo guddi khaas oo ay markay magacaabeen oo Islaan Ciise hogaaminayo iyo madax ka tirsan ciidamada ammaanka ee Puntland iyo murashaxiintii oo nambarkii ugu badnaa oo magaalada joogay Garowe iyo guddigii ansixinta iyo xalinta khilaafaadka ee la isku khilaafsanaa arintaas markii aanu isdhageysanay kulligaya war aanu aad iyo aad ugu wada kalsoonahay baa ka soo baxay oo ah isimadayada dadkii dhisay bacdallahi dawladda Puntland intay Puntland ahayd iyo ka horna gacanta ku hayay ayaa naga kafaalo qaaday oo waxay yiraahdeen hawlaha xagga ciidanka wixii lagu tabanayo iyo xaggi guddiga wixii lagu tabanayo annaga mas'uulka ah wixii dhibaho ka yimaadana annaga hor la qaadayna hawshaasna saasaad la ogaanaysaan annaguna isimadayada wixii ay go'aamiyaan horay baan ugu sheegnay waanu ku qanacnay waanu uga ducaynay waanu kula shaqaynaynaa isimadayada warka wanaagsan marka arintaas wanaageeda iyo dadtinimadeeda meelihii markay meel xil la gasho ragii ka shaqayn jiro isimadaha ayaa go'aan ka qaatay waxaan gaarsiinaynaa reer Puntland inay isimadoodana ku kalsoodana saan ugu kalsoonahay lana wada shaqayno dhamaantaya wixii qaladaada oo soo baxana la soo gudbiyo aynu wada saxno inaan wada shaqayno baan naga go'aana kulligaya ilaa laga gaarayo doorashada hadii alla yiraahdo aad iyo aad baad u mahadsantihiin